badda Soomaali waa mid ka mid ah meelaha ugu kalluunka badan ee Afrika. waxaa lagu qiyaasaa in Soomaaliya ay leedahay 12 milyan oo tan oo kalluun ah sanadkiiba, balse laga faa'iideysto wax yar. kalluumaysatada Soomaaliyeed inta badan waxay adeegsadaan doono yaryar iyo qalab duugoobay. waxaa muhiim ah in la keeno dooniyo waaweyn iyo qalab casri ah sidaan u gaarno isku filnaansho. haddana waxaanu tegaynaa xeebaha Soomaaliya, xeeb ka mid ah saan u soo kalluumaysano ee dadkan u kalluumaystaan. marka nala socda fadlan. assalaamu calaykum. maanta waxaan joognaa xeebtii soo booqanay mar labaad. waxaanu ku soo doonnay kalluun. saad u aragteen ma fahantay, badda waa kacsan tahay. kalluunka waa ka helay daraad dhowr xabaa ka qabtay. haddana waaba jeclaa saaxiibno meesha hadda ka bacdi laga waynaayo khayraadkan badda ka helay. marka mar walba laga faa'iideysto asxaabe. haddana kalluun dabashadana sii galaynaa. waxa waaye kaalin iyo cantalaay iyo jilaab ala kala waa 3 shay. 3 shay marka la isku daro wax weyn laga helayaa. ilaahay baddaan weyn khayraadkan fara badan oo na siiyay. أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بلشوين تمقدشو كسوغان وحا أمهد علا يا ماداما وحان بلشدا حمروين يميلات كلا وشيغيا إن سبدا يسوسكي مان ماداما مالماتن إذك على لساعتان إن تتبضان إقادة شالدان دو عنو قادي مركا وحا يذكر جامعات إنسان بدا الماهي in la soo dirin aad u kacsan tahay aadaan idinku bogaadin hadda imaanaysan badda malaa dabasho imaada maanta anaga waa imaanay malaaya tiro badan dabanay waan idin tusi doonaa doylaad markaan waxa sharxeynaa malaagii amaanta u imaadina dabano maadaama maanta nasiibkeena oo malaay yar noo ahay balse marba si waay laakiin maanta malaay yar dabnay shaxbaan dabnay 5 xabana waa kuwan inta 5 ku tusin ko kaalinta ku soo ku soo dabnay kaalinta waa tana maanta ku shaqeyneen eedaa soo dabnay dadiyo ku dadaala nabad